أكيد وإذا لا علم يولها وحرس ليها هي مسج كاجي موجود ببركة هذا أنت سمين كلوين موجود marka hore waxaan doonayaa inaan laba kalmood ka idhaahdo afka waxa afka la yiraahdo horta intii la suugaanta ka hadal suugaanta waxa dhasha afka inagu waxaan raacnaa u naqaanaa waxa afka malaha waxay ugu magac daray halka uu ka soo baxo waxa language ka la yiraahdo halka uu ka soo baxo halka marka waxaan leeyahay af bay u af Soomaali bay ayaa af Ingiriisi qolada afartu afar bay leeyahay af bay u yaqaan language marka laga hadlo oromadu oo iyaguna isku qolanahay oo qoshitiga isku sida afaan oromo iyaguna halkan un bay waxa lagu kala beeri waayo qoladina qoshitigu marka waxa language leeyahay ku hadlay inaynu ku halka uu ka soo baxo ugu magacda dadka qaar kale oo kuwa la joogtaan ka mid yihiin language erayga lang hadal Faransiisku tiraahdo waa carab عرب لا أفكاراتك هو عرب مركا ملا يقولوا حاجة لان قولوا تريال يقول لينجوي فرنسيسكو لان قولوا لانجويج يقولوا حاجة عرب أنا غير ما يعرفوا حاجة سي ويسكو سي كاستبع هاتيه وهو أفكار وحالينا وأفكار أيام السؤال تبع أفكار بركة لو حليها وكرامه إلى هيدا كسي وحلا بني آدم كأو كلية معنا حد وحلا يا حلك إلا ولا حدله ونمع أجار وح إلهي أبو ري أردن بني آدم كأو كلية الله تام عليه دو حوي كرامة جاره إلهي بني آدم كأوسي وي إنه تدكو ولا حلك وحلا وحكله أبو ري ما هب ودب اسكت إلهي مركو ولمعوين كيسة تلسلي عاو ربضان مركو إلهي لمعوين كيسة شيغانيو قلدها ووحا وأبوري وقدقي وشيغانيو ولاحظ ليو تشيك إنسيكا ولاحظ ولي فبأي آلاء ربكما تكذبان محاكو بين النساء قلدها إلهي بحيي آدسية تشيك إنسيكا ومركو وليهي وحكو بلابيها قال لها وشيء قال يقول بلي آدم وخطله إن معاوي كانوا بحيه وحاول خالص وعرض الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان علمه البيان إلهي وحكو قالت شيء قال يا إنه ذلك أبو ري برينا إلهي ورح الله وقال لها وشيء قال يا إلهي تيك يسيق أبو شيء قال يوي ولي ذلك وانا أبو ري وحالا بري إلهي ورح الله وحسوف كبيا وقال لها ذلك قاوش مركا ولي هاي قرآن كلية وعلم آدم الأسماء كلها إلهي وحنبي آدم بري أففك أو نبو بري مركا أفلق هذا يبني آدم على هذا أفكوا واحد بني آدم كأوقارا بني آدم كان على هذا وحبوه بعد دوري بالعسير كبير أفكوا هدوس ذا بني آدم كأوقاري هذا ولا هي لسا وقلت شيء قرية لين لو يديتونه وأنا معوي كإلهي بحيو كبير يعني ولا تسألون يومئذ عن النعيم ولا لو يديتونه ولا معناها يدها إلى لو خلق إلهي نسي تمرها هي حورها هي لما حساب يقول هاي لما حساب طبعا ويا ما الله ويا أفكم كاية هيو بلاد أوكلي ليه محو أفكم قبتها أفكم محو قبتها جودها ومحو قبتها أفكم وكوميونيكيشن ويوتيليتي والقوة الله مر وريسرفواير كلتشرال ريسرفواير وأفكم وحقوق يتن البحنمة دي يا حضارة دي بني آدم أو نبعه كده مر أفكو وقلب كاللقو فكره بني آدم كغف استوي هرفر ليو إمك حداد السلاح ذا فكر وحاد كو فكري كتا أو كليئة فاكبول رجاجة انت كالموضوع انتقامه قفك فاكبول رجي صدافي كلام ما تشيرو فكرك ما كان فكريش إنجليزيا الصومالية الهندية العربية حاصل فاكبول رجاجة انتو لاقي هاي
ayuubaa fikirkaagu la leeyahay marka waa instrument of thinking waa qalabka lagu fakiro qof kastoo inaga mid yahay ilmaha yari marka uu dhasho uu ubadka iyo inta uu xaga bilyoolayo lugaha sidaa la leeyahay wuxuu urursanayaa vacuum erayo urursanayaa vacuum wuu ina dhageysanayaa erayo urursanayaa ilmaha yari meesha uu joogo ereyada laga hadlo urursanayaa inta uu xaga bilyoolayo saa ku eegayo vocabulary buu urursanayaa maalinta uu ugu horeysa ee vocabulary-gaasi uu utility keliyo ee uu isticmaalo ee kaalay iyo tag iyo soo seexo iyo bax uu garto markaasaa loo yidhahaa ilmuhu uu garaadsaday markaasaa xasuustaada halkaasi ka bilaabataa in allaale inta aad eraya lahayn ee aan enough vocabulary kugu filan aad samaysan ma fikirtid oo waa intaa ubadkaa tahay waa qalabka lagu fikiro afku dameerku wuxuu leeyahay zero vocabulary haddii laga tegi waayo malaakiin baad ku jirta cuntu yaqaan zero intelligence uu leeyahay waa dameer xalbasa hadduu hadli lahaa oo libcada hadalka la siin lahaa aabihii baa u sheegi lahaa walwaalina raltee iskaga tag oo kii ka horreeyay baa u warrami lahaa ila waa libca gaara libcada caqligii iyo labadii baa isku marka afku waa qalabka lagu fikiro muhiimadda intaa leg buu leeyahay oo magar xadaarada iyo ilbaxnimada iyo horumarka bini-aadamku sameeyey wuxuu ku sameeyey because wuxuu leeyahay awoodda communicationka waxaynu sharaabaynaa wixii naga horreeyey xadaarada bini-aadamku waa labanka waa gidaarka qolaba qoladii ka dambaysa waxay kusii daraysaa laban baad kusii daraysaa goor baad ku daraysaa marka aad sharaabto wixii kaa horreeyey iyo halka la soo gaarsiiyey oo yaa kuu soo gudbinaya afka lagu soo gudbiya amba ha la qoro amba ha lagu hadlo ayaa lagu soo markaasaad adiguna ku dari ilbaxnimada afka lagu sameeya waxaa la yidhaha bini-aadamku yacni hadaan civilizationka uu sameeyey ee uu halkaa ku gaadhay horta qalabka hadalka maskax hadalka oo iyo caqligii oo isku hadal iyo caqliba kala gola horta labadaa ha kala saarayna thinking iyo caqliga waa isku iminka anigu I am thinking loudly way maqlaysaa because markan aynu fakirayno senterisaynu samaynayna halkaa ka baxo waa kaamaro halkaa tago meeshaa tago fakirkeena mediumka uu maraa waa kelmad waa weeraha aynu samaynayno ayaynu ku fikirayna qof kastoo inaga bigana iminka wuu fikiraya oo macnaheedu tahay wuu hadlaya anigu waxaan idinkaga nasiib daranahay am simply thinking loudly aniga fikirkaygii baa maqlaysaa anigu dadka dilmaqal baa wax laga yaabaa telefoon gaariyo basal foon inuu bidoosta ka leeyahay baa laga yaabaa inuu hadlaya qofku waa hadlaysaa yuarto waxaa la yidhahaa markaas saaka markaa toostay baad istaanata ilaa iyo caawa markaa ilaa intaa seexanaysana waad hadlaysaa because thinkingkii baa but you are thinking silently waa hadlaysaa hadalkaasina wuxuu kaa joogsadaa markaad seexanayso halkabaadu waxaana istaarantaa ee waa mar aan ku maqlayna iyo mar aan ku maqlayn inta badan ku maqlayna marka hadana aad loogu dayaqday inaan kula wadaagno waxaad ka fikirayso ayuun baan ku maqlaynaa de hadal what you think loudly ayuun baan ku maqlaynaa laakiin se you are thinking senterisaan sabay horta waa qalabkiina hor yaallay aan jecelahayno hadalkeeda ka bilowno qiimaha uu leeyahay hadalku waa kaa sidaan ugu taraxtagi lahaa ugu taraxtagi maayo waxaan doonayaa inaan halkaa kaga gudbo hadalka oon hordhac uga dhiganayo sugaantu hadalka caynkaasa ee qiimaha leh afka qiimaha leh ayay haddii aw hadalku caana ahaan lahaa sugaantu waxay noqon lahayd labeentiisa hadalka sidaa u qiimaha leh ayay intiisa ugu quruxda badan tahay sugaantu waxa weeye hadalka sidaa u quruxda badan intiisa ugu sii quruxda badan wey ayaa la yidhaha sugaan inaan idaacadda maanta weydiinayo wuxuu yidhi sugaantu maxay u qaybsantay